gabadha waxaa la yiri waxay u dhimatay overdose cunugta yartaa baa silic iyo saxariir u dhimatay cunugta yartaa waxaa la yiri 2 kursi dhexdood baa madaxa loo galiyay maayada la gashay oo hintii iyo rafaadkii iyo gaajada la gashay bis ayada markii hore u galisay bis cid kale u galisay Allahu a'lam gabadha yartaa 2 kursi dhexdood baa madax gashatay halkaas ay ku dhimatay hooyo aad u daayar oo da'deedu u dhaxayso 20 ilaa 24 jir iyo gabar yar ay dhashay oo sanad iyo bar jirta ayaa meydkooda laga helay apartment ay deganaayeen Ohio Columbus fiican aan u aqaanay telefishinkan ka dhex arkay saaxalay toole habeen bara meesha imaado waa baqay taqaanin xaafadda ninkii yaqaana xaafaddaas qolkaas deganeed hadda aniga ku dhimatay hooyaduna sariir bay ku dhimatay overdose u dhimatay liiri gabadha reemana soo tayahay baa leeyahay taagaas iyo gaarigaas wadatay magacaas ay leedahay dad baa yaqaana Allahu akbar inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun qofka Soomaaliyeed hooyo aad u daayar oo da'deedu u dhaxayso 20 ilaa 24 jir iyo gabar yar ay dhashay oo sanad iyo bar jirta ayaa meydkooda laga helay apartment ay deganaayeen Ohio Columbus xariistay marxuumadu waxay reer Minnesota waxay ka tagtay magaaladeena Minneapolis waliba aad baan u aqaanay iyada iyo familkeeda Ilaahay ha u naxariisto jannada firdawsan Allah ka waraabiyo hadda baaritaan ayaa socda meydkooda guriga laga dhaxay وحبادي كمان يالان وحنا برنا كمان يالان سيدا هذا يحقيقين فاملي جود وانا قاني او الى صحريره ومغالده ان ودا دغنahay wiil alaaba ka soo qaadi lahaa ayaa wacay gabadha way ka qaban weyday guriga uu tagay uu garaacay waa laga furwaayay ka baadina managementkii uu la xiriiray waxa loo galay meydkii inanta yar iyo hooyadeed oo yaal shinkan ka dhex arkay saaxalay toole habeen bara meesha imaado waa baqay taqaanin xaafadda ninkii yaqaana xaafaddaas qolkaas deganeed hadda aniga inda adeeg in calooshii xanuunaysa intaan soo qarqaraacay gabadha dariska madow waxay tiri niga meeshaan 2 qof waxaa la tay meesha soo tag booliska shal la joogo qof imaadi ma laha